السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa sababta rasmiga ah ee keentay in garsooraha halyeeyga ah ee Soomaaliyeed Cumar Cabdulqaadir Cartan laga soo celiyo dalka Mareykanka. In badan oo idinkan kamid ah waxa laga yaabaa in saacadii la soo dhaafay aad aragteen gurxanka iyo sidoo kale xamaasadda ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan sababta keentay in garsooraheeni laga soo celiyo dalka Mareykanka oo loo diido inuu koobka adduunka dhexdhexaadiyo. laakiin Mareykanku waxay soo daliilsadeen hal qodob oo sababay in dalka Mareykanka laga soo celiyo ninkaas dhalinyarada ah. Haddaba qodobkaas ma taqaanaa? Maanta waxaan rabaa inaan dul istaagno qodobka rasmiga ah ee keenay in Cumar Cabdulqaadir Cartan laga soo celiyo dalka Mareykanka. qodobkaas waxaa la yiraahdaa Fatin Cosigns. Fatin Cosigns wax kale maahan, waa in lagu helo walacyo la xiriira arrimaha ammaanka oo Mareykanku inay kugu helaan waxyaabo ku saabsan arrimaha ammaanka. dowladda Mareykanka ma aysan shaacin horta sababta rasmiga ah, laakiin markii la weydiiyey waxa ay sheegtay waxaan ku helnay Fatin Cosigns ama Fatin Cosigns wax ku saabsan ayaan ku helnay dhaheen. marka sababta waxaa inaan isoo qodobkan Fatin Cosigns maxay tahay waa inaan fahanaa. af Soomaalihan wuxuu noqonayaa walacyada la xiriira baaritaanada amniga. baaritaanadaas amnigana marka hore waa inaan mid fahanaa. marka hore waa muhiim in la fahmo waxa uu yahay Fatin Cosigns. waa nidaam ay dowladaha qaarkood isticmaalaan, gaar ahaan dowladaha Afrika qaarkood, Mareykanka iyo Yurub. waxayna u adeegsadaan baaritaanada dadka dalkooda soo galaya, baaritaanada taariikhda qofkaas uu leeyahay, shakhsiyaadka uu xiriirka la leeyahay, xogta ku jirta codsiga fiisaha, mararka qaarkood xogo dheeri haddii la heli karo oo hay-adaha sirdoonku ay qofkaas ay hor u daba socdeen. marka Fatin Cosigns waa arrintaas. marka Cumar Cabdulqaadir Cartan Mareykanku Fatin Cosigns ma u adeegsan kara? waa maya. sababta Cumar waa la yaqaanaa. Cumar waa 34 sano jir oo la yaqaano inuu aad ugu caan ugu ahaa dhowrkii sano ama 18kii wixii ka dambeeyay. markuu 18 sano gaaray ayuu bilaabay sportiga, laakiin 2018 ayuu caan noqday ninkan. 2018kii ilaa hadda wuxuu ahaa nin garsoorka Afrika ka dhex muuqda, ma ahayn nin u baahan in la baaro oo aqoonsigiisa hore la baaro waxyaabaha uu qaban jiray. sidaa darteed marka la yiraahdo waxa lagu helay Fatin Cosigns, macnaheedu waxay toos ma ahan oo ninkaas u yahay dambile, waa qof khatar ah. sidiisa Fatin Cosigns waa khatar baata, wax khatar ah lagu helay. waxa laga yaabaa kaliya saraakiisha ammaanka ay heleen xog ama tuhun la xiriira arrintaas. laga waxaan rabaa inaan idin sheego hal mid idin fahansiiyo. Cumar hal mid ayuu fahansaneen. waxaa jirtay waxyaabo ka horreeyaa jirtay ninkan laga yaabaa garsoorayaasha Afrika iskula jireen dadkoodii qaarkood inay Cumar sii report gareeyeen, ayna sheegeen ninkan inuu nin halis yahay, inuu kooxaha argagixisada xiriir waxyaabo noocaas oo kale ah, iyagoo raba inayba ka reebaanba tartanka Afrika. ama garsoorayaal kale laga yaabaa inay adeegsadeen oo lacag ku bixiyeen oo dad Soomaali adeegsadeen, dadkaas ay report gareeyeen ninkan intuu Mareykanka tegin oo shaqadaas ay qabteen. sidaa darteed marka la yiraahdo qofka waxa lagu leeyahay Fatin Cosigns, macnaheedu horta ma ahan qofka inuu dambi leeyahay. warbaahinta Mareykanka ee caalamiga gaar ahaan New York Times waxay sheegtay in Cumar Cartan la wareysanayay saacado badan kadib markii garoonka Miami uu ka soo degtay. intii wareysi lagu guda jiray waxa la weydiiyay su'aalo ku saabsan xaaladda amniga Soomaaliya, kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya ka jira. halkaas marka fahan Cumar in la weydiiyo bal maxaad ka aaminsantahay kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya ka jira xaaladda amniga Soomaaliya, isagoo la ogyahay inuu yahay garsoore Afrikaan oo caan ah oo la yaqaano. waxaa jira tuun horay warkiis yuri Cumar. warkaas ama Soomaali ha gudbiso, ama dad kale ha gudbiyeen, ama Afrikaan kale ha gudbiyeen, ama garsoorayaal kale oo caalami ah ninkan dhalinyarada soo kacaya ka soo horjeeda ha gudbiyeen. muhiimadu waxay tahay maadaama ninkan oo ahaa garsoore la yaqaano oo caan ah oo abaalmarino ku guuleysto oo garsoore Afrika ugu fiican noqday oo tartamo badan dhexdhexaadiyay, Mareykanku kaliya waxay rabeen ninka inay baaraan. markay baaraan Cumar Cabdulqaadir Cartan dad meel uu qorto ku soo booday. marka uma baahnid inaad weydiiso xaaladda amniga Soomaaliya. xaaladda amniga Soomaaliya muxuu kala socon karaa nin garsoore sport waayo? kooxaha xagjirka ee Soomaaliya ka jira ka waran, maxaad ka taqaanaa, maxaad ka aaminsantahay, muxuu ka aaminsanaa karaa ninka waa garsoore, arrinta shaqadiisa ma ahanba. marka labada su'aal in la weydiiyo Cumar Cabdulqaadir Cartan waxa ay keentay in ay jirtay tuun ku saabsan ninkan war inuu ka sii horreeyay oo war laga sii dhigay oo dad ay sii report gareeyeen oo dhaheen ninkaas waa nin sidaas, waa nin sidaas, waa nin saas, waa nin saas ah. tan marka waxay dhalisay dood muhiim ah. ma suurtagal baa in qof lagu celiyo tuun kaliya? sidee ayay ku dhici kartaa? haa, jawaabtu waa haa. sharciga socdaalka Mareykanka waxa uu siinayaa saraakiisha xuduudaha awood ballaaran oo ay ku diidi karaan gelitaanka qofka aan ku qancin xogtiisa
xitaa haddii xogtaas uu haysto fiisa sax ah. dad badan ayaa aaminsan in marka qofka fiisa la bixiyo ay taasi ka dhigan tahay in qofka loo ogolaaday inuu dalka galo. xaqiiqdu taas ma ahan. adoo fiisa haysta ayaa garoonka Mareykanka marka ka digata laga soo celi karaa, iyadoo runtii saraakiisha xuduuduhu ay baaritaano wax ugu heli karaan. marka sida daraaddeed waxaa muhiim markasta oo ay safraysa qari. sirta meesha laga garan kara waxa waa Cumar walaalkii waxa laga rabay arrintan inuu qariyo, arrintan inuusan soo bandhigin, arrintan inuusan buunbuunin oo garoonka markuu dhex tago uu ku waabariisto. Soomaalida inuusan soo bandhigin, Afrikaanka inuusan soo bandhigin. Cumar dhibaatada ku dhacday waxay tahay in la ogaa inuu arrintan uu qayb ka yahay oo safarkiisa iyo xogtiisa oo dhan muddo dheer in la baafinayay inuu asaga laftigiisa Soomaali badan ay banaan baxay u dhigeen in koobka adduunka dhexdhexaadi doono. aad baa loo hadlay marka sirtii baa ka baxsatay, sirta safarkiisa baxsatay. sidaa daraaddeed marka Mareykanka waxa waa marka u socotid sirta safarkaaga haddii fakato waxaad halis ugu jirtaa in lagu soo celiyo. khubarada socdaalka ayaa sheegay in fatanka saanisku ay ka dhalan karaan dhowr arrimood. mid ka mid ah haddii qofkaas magaciisa oo lagu helana ay khatar tahay in liiska amniga halista la geliyo. mararka qaarkoodna waxaaba dhici karta lagu leeyahay qofka inay intay wareystaan wareysiga ay ku qanci waayaan ay ku celiyaan. sababta labaad waxay noqon kartaa in xiriir aan toos ahayn uu la yeeshay shakhsiyaad Mareykanka ku sugan, kuwaas oo laga yaabo musuqmaasuq inay ku eedeysan yihiin, waxyaabo noocaas oo kale inay ku eedeysan yihiin, falal argagixis inay ku eedeysan yihiin, dabagal inuu ku socdo laakiin Cumar uusan ogeyn. Cumar baa laga yaabaa inuusan ogeyn laakiin uu kooxahaas la xiriiray oo sidaasna uu maaragtay dhibaatada ugu dhacday. tusaale ahaan haddii qof uu la kulmay oo la sheegay inuu qofkaas xiriirka oo taleefanka oo ka dhexeeya asiga qofkaas oo Mareykanka qofkaas ay daba joogaan oo Mareykanka ku sugan yahay oo Cumar iyo qofkaas xiriir oo ka dhaxeeyo, Cumar wuxuu halis ugu jiraa in arrintaasi lagu qabsado. sababta saddexaad waxay noqon kartaa xog sirdoon oo aan la shaacin. dowladda Mareykanka mararka qaarkood ma faahfaahiso xogaha sirdoon ee ku saleysan go'aamada amniga, iyadoo ku doodaysa inay ilaaliyaan ilaha xogta. marka isku wadaduuba xaaladda Cumar Cartan wararka lagu daabacay warbaahinta caalamiga ee saraakiishu waxay la xiriiraan in looga shakisan yahay argagixiso. wargeysyada Mareykanka waxay qorayaanba Cumar waxaa lagu helay in looga shakisay argagixiso. si kastaba ha ahaatee laakiin taas ma aha wax caddayn leh. Cumarna nin argagixiso looga shaki kara maaha, waa nin asoo dhan la yaqaano. marka Mareykanka laga yaabo in xog been loo soo gudbiyey. dadka taageersan Cumar Cartan waxay ku doodayaan inuu yahay garsoore FIFA ah oo muddo dheer ka shaqeynaya tartamada caalamiga ah ee kuwa xaafadaha Muqdisho. waxay sheegayaan in FIFA iyo CAF ba ay hay'adaha kale ee kubadda cagta marar badan ay sameeyeen baaritaano adag goor inta loo ogolaan inuu garsoore noqdo fitan horey loo marsiiyay ninkan. dhanka kalena dowladda Mareykanka waxay leedahay xaq buuxda oo ku saabsan cidda ay dalkeeda u fasaxayso iyo cidda ay ka soo celinayso. marka lama oran karo Mareykanka maxaad u soo celisay, sababtoo Mareykanka asaga go'aankaas kale cidda uu fasaxayo cidda ogolaanayo. waxa kaliya si rasmi ah loo sheegi karaa waa in saraakiisha Mareykanka jiraan walaaciyo amni oo la xiriira. marka waa halis weyn in garsooreyeen Soomaaliyeed fuusto loo soo riixay. fuustadaasna dowladda Mareykanka u soo riixday iyadoo sheegaysa inay falal argagixis la xiriira ay ku helaan. taasna ma ahan mid suurtagal ah in garsoore Soomaaliyeed oo runtii sida qarankiisa ugu adeega la wada ogyahay lagu helo falal la xiriira argagixisnimo iyo wax la xiriira. gabagabadii kiiska Cumar Cartan wuxuu noqday mid ka baxsan kubadda cagta oo kaliya, wuxuuna furay dood ku saabsan amniga, socdaalka, xuquuqda safarka iyo sida dowladaha waaweyn ay u adeegsanayaan awoodaha xuduudaha ilaa iyo hadda. qodobka saxda ah ee Mareykanka ku haysto Cumar waa in wargeysyada qaarkood ay sheegeen fatanku saanin lagu helay fal argagixiso. arrintaasna waa arrin aad looga naxo. tan sidoo kale Mareykanka ay sumcad weyn ayaa ku dhacay dowladdii weyneed ee Mareykanka, taas oo ku saabsaneyd in garsoore runtii dalkooda soo galayay uu la celiyo, waana sababta keentay in garsooreyaal badan ay ka xanaaqaan. sidoo kalena adduunka oo dhan ayaa arrintan ka hadlaya, waxayna ku aadeynayaan in Mareykanka uu jabiyey sharciga caalamiga ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa qodobkeeni maanta fitanka signinka ee kaga hadlaynay Cumar Cabdulqaadir Cartan. haddaba dhageystay iyo daawada haddii aad nagu cusub tahay fadlan na soo subscribe garee si aad ula socoteed xogaheena kale. mahadsanidin, waana kaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo dadaalkiina.